بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا wuxuu ku saabsan yahay fadliga uu leeyahay istikfaarta. fadliga istikfaarta uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo badan buu noogu sheegay. saddex suuradood: suurat nuux, suurat lhuud iyo suurat alanfaal. markaan ku horeyno suurat nuux, ilaahay wuxuu yihi faqultu istakfiruu rabakum inahu kana gafaara yursilu samaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaali wabaniin. imaam xasan albasri ayaa waxaa u yimaadeen 4 qofood oo nin walbo muraad gaara uu leeyahay. ninkii ugu horeeyey baa wuxuu yihi yaa caalim uddiin, ninka diinta yaqaanow, wuxuu yihi dembigeygii baa batay, dembi dhaafaan rabaa, maxaad ii amri? istikfaarta qabee xagga fariisuu yihi. mid labaadaa yimid, wuxuu yihi yaa caalim uddiin, cirkii roob diid, dhulkiina badarkii waa diiday, maxaad i faraysaa wey? istikfaarta qabee xagga fariiso. nin saddexaad baa yimid oo wuxuu yihi yaa caalim uddiin, geedii maal la yiri baan soo qaban lahay, maal baan u baahanahay, maxaad i amri? istikfaarta qabee xagga fariisuu yihi. nin afaraad baa yimid, wuxuu yihi yaa caalim uddiin, islaantii 10 sano ayay sii mareysaa, wax caruura lagama hayo, wiil iyo gabar midna. markaasuu yihi istikfaarta qabee xagga fariiso. raggii baa iswareystay. markaasaytibaa waxaa la yihi maanta imaamku amay waxsi ka yihiin. 4 xaaladood oo kala gadisan baynu nahay. hal rashito oo maaragtay hal dawo noo qoray. marka bal aan weydiino, yaa caalim uddiin, annaga 4 xaaladood oo kala gadisan baan nahay, haddee hal shay un baadna amri. wuxuu yihi miyaydan kitaabka akrinina? bala waa akrinay, iska daaye. marka muusan alla oran, waqul waxaad tiraahdaa istakfiruu rabbakum, rabbigiina dembi dhaaf weydiista. waqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara, waa ninkii dembi dhaafka rabay. yursilu samaa calaykum idraara, waa ninkii roobka rabay. wayumdidkum, wuxuu ilaahay idin siinhayaa biamwaalin, xoolayaalo, waa ninkii saddexaad oo maalka rabay. wabaniina, awlaadyaalo, waa ninkii caruurta raadinahayay. maanaa idi iri bu yiri, maskale allah idi yiri, ilaah baana yiri. marka ordo istikfaarta qabtee yaa socda buu yiri. faa'iidada istikfaarta oo mowduucana uu yahay taa baanu ku horeysiinay. ninkii maanta dembi dhaaf rabo waa istikfaar, ninkii maanta roob rabo waa istikfaar, ninkii maanta maal rabo waa istikfaar, ninkii rabo awlaadna waa istikfaar wey. marka waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo, talow yaa 4 xaaladooda kala gadisan, yaa maxaa u dhexaynahaya? niyad baa u dhexaynaysa. inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa, ayuu nebiga yiri, ow kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam. niyadda ayaa kala fariqayso. niyadaada hadday tahay inuu ilaahay kuu dembi dhaafo, niyadaada hadday tahay inuu ilaahay maaragtay roob ku siiyo, niyadaada hadday tahay inuu ilaahay maal ku siiyo, niyadaada hadday tahay inuu ilaahay awlaad ku siiyo. idan marka niyadda unbaa u dhexaynayso.
markaan tusaale u soo qaadano labada rakac ee sunnaha iyo labada rakaca waajibka maxaa u dhexeeya? leanna mid walbo faatixa iyo aayad qur'aana ama suurad ayaa lagu akrin, waa lagu takbiirsan, waa lagu tasbiixsan, waa lagu taxmiidsan, waa anta allahu akbar, subxaana allah, alxamdu lilah, subxaana allah alcadiim, subxaana allah rabi alcala ayaa la oranaya. wax kale yaa labadaba maaragtay intaas waxaan ahayn miyaa lagu sameyn? waa maya. idan waxa u dhexeeya waxa weye midna waa waajib, midna waa naafilo, waa sunno wey. niyaddaa u dhexeyso. istikfaarta faa'iidada kale ay leedahay waxaa ka mid ah oo ilaahay subxaanahu watacaala suurat alanfaal inoogu sheegay. labuu noo tilmaamay, midse lama hayo, mid unbaa la hayaa. wamaa kaana allahu mucadibahum wa anta fiihim. ilaahay ma aha mid cadaaba intaad dhex joogtid. waa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam, nebiga inama dhex joogo, taa lama hayo. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. intay istikfaarsanahayaan ilaahay maha mid cadaaba, laa fi dunya walaa fi laakhira. adduun iyo aakhira ilaahay midna ku cadaabi maayo. waa suurat alanfaal. haddii la doonahayo inuu ilaahay quwadeena adkeeyo, xoogaaga quwadaada aad doontay, idan istikfaar wey. waa nebi huud calayhi salaam markuu qoomkiisa la hadlahayo, yaa qowm istakfiruu rabbakum huma tuubuu ileyh yumatickum mataacan xasana wayuzidkum quwatikum ilaa quwatin. yacni ilaahay subxaanahu watacaala u istikfaarsada, ma garati, wuu idin raaxaynaya raaxo wanaagsan. yaa xooggiinana yaa mid waa sii ziyaadinaya rabbi subxaanahu watacaala. lexdaasayti arrimood ayaa istikfaartu lagu helaa. marka waxa weeye waa in niyad saafiya lala yimaada oo la niyoodaa, oo daa'iman istikfaarta fawaa'idaasay leedahay. tan labaad, markaynu hooyana habeenkii aynu u dunno firaashka jiifka la isu diyaariyo oo barkinta madaxa la dhigo, waxaa la rabaa in istikfaar fara badan lala yimaado. waxaa la rabaa in kun xasano lala yimaado. waa sidee? suuratu muxamed aayadda 19 baan jeclahay. uu ilaahay leeyahay faclam, ogow. wax walba horta cilmiga u horeeya. wax kasto cilmiga knowledgeka u horeeya waa inaad ogtahay horta. waa inaad ogtahay waxa faa'iidadiisa iyo waxa laga helayo, benefitka laga helahayo, faa'iidada laga helahayo. faclam, ogow, annahu laa ilaaha ilaa huwa. marka waa qowl weeye. carabkeed laa ilaaha ilaa huwa markaad tiraahdid, maxaa xiga? qowlkii camal. wastakfirii lidembika waa marka dembigaaga yaa ilaahay inuu ku dhaafo weydiiso. idan marka wastakfirii lidembika adiga keligaa maya, walilmu'miniina. wixii mu'miniin oo raga laga bilaabo aadam iyo wiilka ugu dambeeya ummadda nebi maxamed oo mu'min ah ayaa dembi dhaaf u weydiinaysaa. waalmu'minaati, ummana xawaa laga bilaabay gabadha ugu dambeyso oo mu'minadda ee ummata nebi maxamed ayaa dembi dhaaf u weydiini. tiro intee la eg? 33 jeerba? ma 90 jeerba? ma 1000ba? ma 500ba? idan waa intee la eg?